Qolkan jiif oo yar oo keliya ah 6 mitir oo isku weer ah ayaa loo beddelay meel shaqo badan kagu qaban karo. Markii hore wuxuu ahaa mid ciriiri ah oo aysan joogi karin gabadhan oo deganeed. Laakiin eedadeed ayaa keentay fikrad cusub oo looga dhigi karo mid waafi ah qolkan yar. Marka hore waxaa la dhigay armaajo hoose oo leh 2 daaqadood oo waaweyn. Mid loogu talagalay boorsooyinka safarka. Mida kalena gogosha iyo barkimada lagu xareeyo, geeskeedana waxaa la dhigay buugsheef furan. Qaybta hoose waxaa laga dhigay meel sir ah oo ay ku qarsato gabadhu alaabaheeda gaarka. Qaybta sarena waxaa lagu kaydiyo buugaagta waxbarashada. Dhinacaana waxaa la dhigay armaajo weyn oo dharka la xiranayo la suro ama lagu guro. Dharkeeda ee quruxda badan iyo kuwii casriga ahaa ayaa si nadiif ah loo sudhay, albaab xirmayana waa loo sameeyey. Armaajadii dhulka tiil ayaa la saaray fadhi jilicsan si ay uga dhigato fadhi ay ku nasato waxna ku akhrisato. Miis yar oo kayd leh ayaa la dhigay geeska fadhiga waxaana la dul saaray waxyaabo yaryar. Derbiga waxaa lagu dhejiyey TV si ay ugu daawato filimada. Daaqadda hoosteeda waxaa la dhigay miis ballaaran oo leh qaanado lagu guro qalabka waxbarashada. Dusha sararana ka ah meel fidsan oo wax lagu baran karo, waxyaabo badana la saari karo. Halkan waxaa lagu sameeyey sariir kor loo qaaday oo bir adag iyo alwaax lagu dhisay. Dusha waxaa la dhigay furaash raaxo leh oo si naxariis leh loogu hurdi karo. Derbiga waxaa lagu xoojiyey barkin jilicsan, waxaana lagu dhejiyey xayndaab dhinac ah si gabadhu aysan uga dhicin. Kor waxaa la dhigay qaanado lagu kaydiyo boorsooyinka iyo alaabta kale. Dhinacan hoose waxaa la sameeyey meel yar oo la dhigo buugaagta iyo alaabta habeenkii la isticmaalo, waxaana lagu daray switches iyo sokotis koronto si taleefanka loogu dabeesto nalkana looga maamulo. Sariirta waxaa jaranjaro looga dhigay qaanado kala sareeya, waxaana lagu kala kaydiyaa dharka hoose, gogosha iyo dharka xilliyada kale gaarka. Qaanada ugu dameysana waxaa lagu ururiyey buugaagta suugaanta iyo dhaqanka. Saqafka waxaa lagu dhejiyey marawaxad yar oo qabow keenta, taasoo ka dhigaysa qolka mid qabow oo raaxo leh. Ugu dambayn, qolkii yaraa ee u ekaa buul shimbir ayaa noqday guri qurux badan oo waxyaabo badan loo isticmaali karo. Sidaan ka dhigo haddaad degan tahay qol yar oo ciriiri kugu ah, kolay caajislow baa tahe oo waxba ma qabsan kartide. Muuqaalka leeg saar leejan ama leejamad.